بسم الله الرحمن الرحيم سفر دير كدب شقاء أدق يأتكيسي إن كبدن سغاشن أفر شروطات ولا حريرة ديبوديسكا هنانكا دقالها ولغو قوليستي وحمانتا نو صورة قشي إن لن نصور نقولنا حريركي أن للهين هيدها دقالها دونكا وحاكم إذا بانجيغا دونكا هيدها العكتا دونكا بانجيغا هرمارينتا أفريكا kadib go'aankii maanta ka soo baxay maamulka hay'adda lacagta adduunka kaasoo go'aamiyay in Soomaaliya ay soo buuxisay shuruudihii deyn cafiska oo dhan waxaan mahad u celinayaa dhammaan intii suura gelisay kaalmaysay ka shaqaysay ka qayb qaadatay safarkii dheeraa ee aan u soo galnay guusha maanta noo soo hoyatay oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo labada aqal ee baarlamaanka madaxweynayaasha dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliyeed golaha wasiirada dawlad goboleedyada golaha wasiirada dawladda federaalka shaqaalaha hay'adaha kala duwan ee dawladda Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo bixiyay canshuurtii ugu badnayd ee dalka laga aruuriyo intii dib loo aasaasay dawladda federaalka Soomaaliya taasoo qayb weyn ka qaadatay in ummadda Soomaaliyeed maanta ay soo gaarto go'aankan farxadda leh ee noo soo hoyday waxa sidoo kale mahadcelin ballaaran u soo jeedinaya dhammaan hay'adaha caalamiga ah iyo wadamada aan saaxiibada nahay oo si hagar la'aan ah noogala shaqeeyay sidii Soomaaliya ay u gaari lahayd hadafkan muhiimka ah intii lagu guda jiray geedi socodka deyn cafiska waxa la sameeyay isbeddello badan oo la xiriira hanaanka dhaqaalaha dalka tusaale ahaan dakhliga dalka waxa uu ahaa markii dawladdani ay shaqada bilowday 248 milyan hadda waxa uu marayaa 470 milyan iyadoo go'aanka maanta la gaaray uu aad u sii kordhin doono dakhliga dalkan soo gali doona dakhliga markii dalka dawladdani ay shaqadiisa qabatay waxa aruurin jiray 22 hay'adood oo dawli ah iyo 7 shirkadood oo gaar loo leeyahay oo dad shacbi ay leeyihiin halka maanta dhammaan dakhliga dawladda federaalka uu ku soo xaroodo gacanta dawladda Soomaaliyeed ee wasaaradda maaliyadda oo kaliya miisaaniyadda dalka ma ahayn mid fadhida waxaana dhici jirtay in mushaarka shaqaalaha iyo ciidamada aan si joogto ah loo bixin mararka qaarna dawladdu waxay gali jirtay deymo dalka gudihiisa ah sababtoo ah haddii la bixin waayo mushaar shaqaaleed ama ciidan waxay noqon jirtay deyn maadaama aan la wada bixin jirin kharashaadkaas dawladda deymahaasi waxay kor u dhaafayeen 100 milyan oo gudaha kaliya ah marka aan dalka nimid sida aad la socotaan 3 sano ee dawladdana xukunka haysay ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ah si joogto ah ayaa bil walba mushaarkeeda ama mushaarkooda loo siin jiray sidoo kale dawladdu ma gelin wax deyn ah muddadii 36 bilood oo ay shaqada haysay waxa iyadana dib u habeyn lagu sameeyay nidaamka dakhli aruurinta iyo kharash bixinta iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyad casri ah taasoo kor u qaaday wada shaqaynta hay'adaha maaliyadda dalka sida wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe ee Soomaaliya isla markaana qayb weyn ka qaatay sidii loo xakameyn lahaa musuqmaasuqa waxa kale oo inoo suurto gashay in la meel mariyo 10 sharci oo lafdhabar u ah dib u habeynta hanaanka dhaqaalaha dalka qaybna ka ahaa shuruudaha deyn cafiska kuwaasoo ay ka mid yihiin sharciga dakhliga sharciga maamulka maaliyadda sharciga iibka qaranka sharciga statistikada sharciga shirkadaha sharciga isgaarsiinta qaranka sharciga batroolka iyo sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa waxa iyaduna horumar aad u ballaaran laga sameeyay dib u habeynta ciidamada iyo shaqaalaha rayidka waxa la sameeyay diiwaangelinta habka casriga ah ee loo yaqaan biometric registration taasoo sugtay tirada dhabta ah ee ciidamada iyo shaqaalaha rayidka iyadoo la diiwaan gelinayo xogta gaarka ah ee shakhsi walba oo ka mid ah ciidamada iyo shaqaalaha rayidka waxa meesha iyadana laga saaray lacagtii gacanta lagu qaadi jiray waxaana la suurto geliyay in shilin walba ama dollar walba oo soo gala
qasnada bangiga dhexe lagu shubo akoon uu leeyahay qof shaqaale ah ama qof ciidan ah ama adeeg la bixiyey oo soo maray shuruudaha dhabta ah ee hufnaanta oo adduunyadoo dhani ay aqoonsatay taasoo keentay in dalka deynta laga cafiyo deyn cafiska go'aanka maanta laga gaaray waa maxay faa'iidooyinka ay leeyihiin kow dalkeenu laga bilaabo caawa waxa uu helayaa xuquuqda iyo saamiga aan ku leenahay hay-adaha dhaqaalaha adduunka hay-adaha dhaqaalaha adduunka oo ugu horeeyo bangiga adduunka hay-adda lacagta adduunka bangiga horumarinta afrika bangiga islaamka iyo dhammaan hay-adaha horumarinta ee dowladaha dunida waxay fursad cusub u furaysaa ganacsatada dalka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gobol walba oo heli doona maalgashi caalami ah haddii aad joogto Hargeysa ama Burco ama Boosaaso ama Jowhar ama Kismaayo ama Dhuusamareeb dunida waxay maanta leedahay fursad ay dalkan ku maalgashato waayo laga bilaabo maanta waxa laga wareejiyay caqabadihii iyo shuruudihii hortaagnaa waxaan naga caawinaysaa dib u dhiska dalka sababtoo ah waxaan heli doonaa dhaqaalo lagu dhiso iskuulada isbitaalada jidadka lagu abuuro shaqo waxa kobci doona dhaqaalaha dalka dhan oo miisaaniyadan malaayiinta ayaa insha Allah waxay gaari doontaa balaayiin waxa bilaaban doona in dadka Soomaaliyeed ay helaan adeegyo waafi ah waxa dawladda Soomaaliyeed helaysaa aaminaad ah in dunidu nagu aaminto dhaqaalaha dalka loogu talagalay waxa isbedelay laga bilaabo saacadan wajigii lagu yaqaanay dalka Soomaaliyeed iyo qaabkii loola macaamili jiray sidoo kale waxa u dhib yaraan doona bangiyada Soomaaliyeed ee dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin inay la macaamilaan bangiyada adduunyada ku yaala guushani waxay tilmaamaysaa in dadka Soomaaliyeed ay ka soo bixi karaan shuruud kasta haddii ay go'aansadaan inay gacmaha isqabsadaan haddaba guushan ma lahan qof gaar ama dawladda kaligeed ama madaxweyne ama ra'iisul wasaare ama baarlamaan ama dawlad goboleedyo guushani waa guul weyn oo ah guushii ugu weyneed oo la gaaray 30 sano la soo dhaafay waa guul u dhiganta inaan mar labaad dib u xorownay waa guul noo keentay xorriyad ah inaan dal walba dib ula macaamili doono oo lagu gudbi doono meelihii iyo hay'adihii naloo soo mari jiray sidaas daraadeed ayay waajib ku tahay qof walba oo Soomaaliyeed inuu qayb ka ahaado inaanan gadaal u naqan oo laga shaqeeyo sidii guushani ay ummadda Soomaaliyeed u xajisan lahaayeen si taasi haddaba u dhacdo waxaa muhiim ah in laga sii shaqeeyo hufnaanta maamulka isla xisaabtanka dawlad wanaaga iyo shaqo ku dhisan xirfad ku salaysan aqoon kana madax bannaan qabyaalad iyo musuqmaasuq waa mahadsantihiin maantay waxaa la gaaray go'aan ah in deyntii ay nagu lahaayeen bangiga adduunka hay'adda lacagta adduunka bangiga horumarinta afrika in la baabiyey oo aan waxba nala ku lahayn waxa kaloo la gaaray wadamada ku midoobay Paris Club inay iyaguna aqbaleen Soomaaliya in deynta laga cafiyo laakiin shaqo ay ka dhiman tahay macnaheedu waxay tahay 31 bishan ama bisha soo socota bilowgeeda waxa shiri doona wadamada ku midoobay waxa la isugu yiraahdo Paris Club annaguna aan qayb ka noqon doono kuwaasoo go'aamin doona iyaguna qayb kamida inta la cafiyay inta hartay macnaheedu waxay tahay waa in la soo buuxiyaa shuruudaha haray laakiin farxaddu waxay tahay caqabad walba oo ummadda Soomaaliyeed hortaagneed oo ahayd in iyaga toos loo aamino oo ahayd in waxay xuquuqda u lahaayeen la siiyo oo ahayd in loo haysto dal aan maamulkiisa dhaqaale ama nidaamkiisa dhaqaale la aamini karin ma go'aankaas isaga ah oo la gaaray maanta ayaa soo afjaray
waxaa soo haray sidee baa looga sii shaqaynayaa sidaan idiin sheegay waxaa la soo maray safar dheer aad u culus shuruudo badan oo ay khasab ahayd in la fuliyo si dalku uu u sii ahaado dal hore u socda waa in hufnaanta isla xisaabtanka iyo dib habeynta dhaqaalaha ay sii socoto Soomaaliya waxa dhacday deynta laga cafiyay ma laga yaabaa deynta hadda la cafiyay mar dambe in dib loo galo maamulka dalka ayaa mar walba laga rabaa in dalka loo maamulo si jiilka ka dambeeya ay ugu noolaadaan nolol ka fiican kan jiilkan ay haystaan kuweena madaxda ah hadda waxaa laga rabaa go'aanka aan gaarno inaanu dhibaato u keenin kuwa mustaqbalka go'aan walba oo dalka loo gaarayo marka waa inuu ku salaysnaadaa inuu wax ka bedelayo nolosha dadka Soomaaliyeed wiilashii gabdhaha hadda jooga oo dhalinyarada ah iyo kuwa caawa iyo bari dhalanaya annaga waxay nagu qaadatay waqti iyo xoog inaan gelino inaan soo gaarno meesha maanta aan joogno waxaa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliyeed inay dib ku tahay inay fahmaan laakiin idinkoo garanaya xaaladda lagu shaqeynayo in dalka Soomaaliyeed maanta uu halkan soo gaaro waa guul qof walba Soomaaliyeed u soo hoyatay qof walba Soomaaliyeed ay khasab ku tahay inay ilaashato magacayga waa Maxamed Cali Weheliye aan ka socdaa TV-ga Universal wada ra'iisul wasaare dadka Soomaaliyeed arrintan way ku jahwareersan ma inoo kala qeexi kartaa farqiga u dhaxeeya deyn cafinta iyo deyn qafiifinta maxayse tahay Soomaaliya guusha ay maanta gaartay horta waxaan rabaa inaan idiin sheegno shalay meeshii aan joognay iyo caawa meeshii aan joognay shalay waxaan joognay inaanan xiriir furan oo wax nala ku aamini karo aanan la lahayn bangiga adduunka hay'adda lacagta adduunka bangiga horumarinta Afrika shalay waxaan joognay inaan nahay wadan nidaamka maaliyadda ka dhacsan maanta waxaan joognaa wadan hay'adda lacagta adduunka bangiga horumarinta Afrika aanay wax shilin oo deyn ku lahayn oo annaga iyo wadamada dariska iyo wadamada dunida u simannahay labo maanta waxaan joognaa inaan nahay wadankii ugu dambeeyay oo loo ogolaaday deynta in laga cafiyo macnaheedu waxay tahay albaab walba maanta noo furmay fursadna waan leenahay shilin walba oo nala ku leeyahay ama dollar walba nala ku leeyahay in nala ka tirtiro macnaheedu waxay tahay albaab walba waa lagu furay inta ku hortana adigu shaqayso wajigaas waxa uu yahay Soomaaliya cusub oo fursad cusub leh Soomaaliya cusubna ma aha dadka magaalada Muqdisho jooga waa qof walba Soomaaliyeed oo dalka gudihiisa jooga cid rabtaa inay 500 milyan gashato Hargeysa ama Burco Britay tagi kartaa waayo caymisyadii hortaagnaa waa laga qaaday talaabadii hortaalay cid rabtaa inay bilyan gashato Garowe ama Kismaayo ama Dhuusamareeb wax hortaagan male sababtoo ah caymisyadii dunida oo waagi hore diidanaa waa laga horwareejiyay macnaheedu waxa ay tahay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya warqadda ay u qorto bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka iyo hay'ad walba horumarineed iyo waxa isku mid ah dal walba oo kale warqadaha ay qoraan waliba shuruudaha qaabka aan uga soo baxnay iyo hufnaanta aan uga soo baxnay sareynteeda awgeed fursadda maanta aan haysanno ayaa ka badan fursadaha dawladaha dariska dadka Soomaaliyeed oo dhageysanaya waxaan rabaa inaan u sheego haddii wadan walba oo dariskeena billions of dollars lagu leeyahay mid walba oo dariskeena annaguna maanta aan taagannahay inaan nadiif wax walba ka noqono waxa khayraad dalkan yaalana aad ogtiin dadka Soomaaliyeed
indha furnaantooda iyo kartidooda iyo aqoonta ganacsiga ay u leeyihiin aad ogtihiin waxaa la rabaa in Soomaaliya ay u jeedo iftiinkan isaga 3 sano ka hor dad badan dhibay ku ahayd inay aaminaan maanta inaan meeshan soo gaarayno 10 sano kadib qof walba Soomaaliyeed waxaa la rabaa qalbigiisa inuu gelin karo in Soomaaliya ay noqon karto wadanka ugu horumarsan qaaradda Afrika hay-adda lacagta adduunka deynta Soomaaliya ku lahayd maanta ay ka cafisay bangiga adduunkuna maanta ka cafiyay bangiga horumarinta Afrikana maanta ka cafiyay waxaa la rabaa in la fahmo haddii aad tahay dawladda Norway ay lacag kugu leedahay ama dawladda Talyaaniga siday haddaba noogu lahaayeen ama noogu leeyihiin inta u tagtid ma ka cafin karaan lacagtaas waayo nidaam ay ku midoobeen ayaa jira oo ah Paris Club la yiraahdo nidaamkaas waxa uu leeyahay si aan kala hadalno inaan deynta ka cafino waa in marka hore aad soo buuxisaa shuruudaha hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka ay ka rabaan kadib aan kula fariisanaynaa aan ka cafinaynaa laakiin si hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka ay ku aqbalaan waa in wadamadii deynta kugu lahaay ay iyaga la soo aqbalaan macnaheedu waxay tahay waa la buuxiyay shuruudihii deyn cafiska inta dhimanna waa qoraal iyo gorgortan iyo shuruudaha in la soo buuxiyo hadafku waxa uu yahay marka in la fahmo albaabadii Soomaaliya ka xirnaa maanta ay u furmeen aad u mahadsan tahay fiiri markii aan hadlaayay waxaan sheegay shuruudaha maanta aan soo buuxinay tan ugu horeysa waxay ahayd dalku inuu leeyahay miisaaniyad fadhiya macnaheedu waxay tahay waxa ku soo gala iyo waxa ka baxaya waa inay isleeyihiin waa inaadan deyn gelin nidaamkii ahaa in dad la iska qori karo adoon dhaqaale u hayn ama hebel iga meelee waa anaga albaabada ka soo xirnay si aan xanuun u marno maantana aan soo gaarno markii dhaqaalaha hadda ay noo furmaan oo la bilaabi doono mustaqbalka in dalku uu fursad u helo inuu jidad dhiso isbitaallo dhiso iskuulo dhiso adeeg caafimaad bixiyo waxbarasho bixiyo waxa khasab noqonaysa in dad la shaqaalaysiiyo meeshii aan u soo soconay haddaan taagannahay doodda maanta aan qabnaa marka waxay tahay meesha hadda aan taagannahayna sideen u ilaashanaa meel ka wanaagsanna sideen u tagnaa annagoo u danaynayna dadkeenna siinaynana fursadaha ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed waxaa la rabaa inay ku kalsoonaadaan madaxdooda qof walba oo dalkan madax ka ah isaga loo dhaariyay oo kitaab gacanta u galiyay khayraadka wadanka qof ajnabi intuu yimaado ma qaadan karo haddii aan la saxiixin cid u saxiixin waa ogtiin sida dalkan aan u nimid si heshiis loo galo waxaan soo rognay nidaam ah in haddii shirkad ajnabi ay rabto dalkan ama dal ajnabi inuu heshiis la galo dalkeena ay soo maraan waaxda sharciga wasaaradda arrimaha dibadda ay yimaadaan garyaqaanka guud laga helo ogolaasho golaha wasiirada inta aan la saxiixin ka hor loo yimaado ra'iisul wasaaraha inta aan la saxiixin ka hor golaha wasiiradoo dhan ay aqbalaan kadib loo ogolaado in la saxiixo intaas heshiiska aan soo marin waa heshiis baal marsan shuruucda dalka intaas waxaan u sameynay in qof aanu ku khaldamin in khayraadka dalka ama heshiis si fudud loo saxiixi karo haddii dadka Soomaaliyeed marka sida aad su'aasha u dhigtay ay ka walwalsan yihiin
deyn cafiskan iyo makhayraadkeenna isku xiran maya deyn cafiskan shuruudo safar dheer oo sahaydiisu yar tahay oo xanuun badan oo shuruudo badan ku xiran yihiin loo soo maray ayaa maanta halkan soo gaarsiiyey faa'iidada aan guranaynana waxaa dhalisay shaqadaas iyo dadaalkaas ay ka soo shaqeeyaan dadka Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan shacabka Soomaaliyeed oo dul qaatay madaxda dawlad goboleedyada madaxda dawladda federaalka labada aqal ee baarlamaanka cid walba As I've said earlier, this is the single most achievement that the Somali people and government of Somalia have made for the past 30 years. This is also the second liberation of our nation after the first, which was the independence of this nation. Today we re-engage with international financial institutions as equal as any other nation. There is no Somalia with bad credit as it used to be. There's no Somalia with bad reputation as it used to be. We have the same access to the international financial institutions that our neighbors have or the rest of the world has. We open doors of untold opportunities that can bring peace and prosperity to this country, which means our business community have access to resources, which means we can provide services to our people, and which means the old narrative of Somalia with no institutions that function has come to an end today. So today is a new day. We turn a new page. Waa mahadsantihiin.